waan idin salaamay dhammaan dadka ku xiran page-kayga iyo kuwa aan ku xirnaynba. Maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo 4 qodob kaas oo aad ku ogaanaysid qofka aad jeceshahay inuu asagana ku jecel yahay. Dad badan ayaa ku wareersan dadka ay jecel yihiin. Meeqa qof ayaa ku rafaaday dadka ay jecel yihiin. Meeqa u saxriirtay oo u rafaaday qofka ay jeclaayeen haddana aysan helin. Ogow sababta aysan lamaana badan isku helinin. Ogow sababta aysan dad badan isku calfinaynin ayagoo isla socday muddo dheer ama muddo gaabanba. Mar haddii aad jecel ku qaaday ama aad qof jeclaatay, waxaa muhiim ah inay maskaxdaada ay aad u shaqaynayso oo aad tahay qof maskaxdiisa ay furan tahay, wax walbana ka fakarayo. Haddaba 4 qodob. Qodobka koowaad wuxuu yahay haddaad aragtid qofka aad jeceshahay inuusan ku soo wicinin ilaa aad adiga wacdo mooye, inuusan message kuu soo qoraynin ilaa aad adiga u qorto mooye, inuusan marnaba ku weydiinaynin inuu kula kulmo ama uusan kaa codsanaynin inaad is aragtiin, qofkaas jaceylka uu qabo ma aha jaceyl buuran. Sida aan aniga ogahay adigana aad ogtahay, qofka wax jecel waa kan mar walba ku daneeya inuu ku soo waco. Wuxuu aad u jecel yahay inuu kula kulmo, sidoo kale wuxuu aad u daneeyaa inuu mar walba kula sheekaysto. Waa calaamad lagu yaqaan dadka wax jecel. Qodobka labaad waxay tahay haddaad aragtid qofka jaceylka kala dhaxeeyo inuu ku soo wacayo hal waqti oo keliya, waqtigaas uu ku soo wacayana uu dan ka leeyahay bis, ama dan uu asaga u baahan yahay oo keliya ayuu ku soo wacday, taasoo ah in aad wax siisid. Wuu ku soo wacay kadib wuxuu ku dhahay waxaan u baahanahay qarash ama lacag, ama waxaan u baahanahay kaarkaas markaad siisid kabacdi wicitaan ma ku arkaysid. Ayaan kabacdi uu ku soo wacayaa haddana wuxuu ku leeyahay waxaan u baahanahay shaygaas. Ogow qofkaas jecel ma kuu qabo, dan ayuu ka leeyahay oo keliya. Qodobka saddexaad wuxuu yahay haddaad aragto qofka aad jeceshahay inuusan taleefon kaa qabanaynin, waad wacday taleefon ma kaa qaban, wuu arkay muusan kuugu soo celin, sidaas maalmo badan ayuu kugu waday. Qofka bini'aadanka hal mar waa laga yaabaa inuu mashquul yahay, laakiin mar walba qofka bini'aadanka mashquul maaha. Midda kale, qofka hadduu ku jecel yahay ma ku weynayo waqti uu kugula hadlo. Si kasta uu mashquul u yahay ma weynayo daqiiqad uu kugu dhaho waa mashquulsanahay, marka shaqada ka soo dhammaado aan ku soo wacayaa. Ama xataa hadduu taas awoodin, wax kale uu awoodaa inuu kuu soo qoro message uu ku dhaho galaasaan ku jiraa ama waa mashquulaan ahay, anaa hadhow kula soo hadlayo. Laakiin haddaad intaas ka weysid qofka aad jeceshahay, aad mar walbana aad wacdid uusan taleefankaaga kaa qabanaynin ama uusan kugu soo celinaynin, oo qofkaas jaceylka uu kuu qabo ma aha mid caga badan ku taagan, baahida aad qabtina ma kuu qabo. 4 tan ugu dambeysa ee 4aad waxaa weeye balankabax. Balankabaxdu waxay jibisaa qalbiga qofka ku jecel. Maanta qofka aad jecleed ayaa wacday, waxaa tiri inaas aragna ayaa rabaa. Haye ayuu ku dhahay, asigoo aanan diyaar u ahayn inuu ku arko ayuu haddana wax ku yidhi haye waas arkayna inuu meel hebel ah. Marka meesha soo istaagtay soo wac. Kadib adiga waa isdiyaarisay, waad baxday, qarashaa ku galay, meeshii ayaa tagtay. Marka meeshii aad tagtay aad wacday, taleefanka muusan kaa qaban, bis cabbaraa wacday muusan kaa qaban, waad ka soo laabatay. Xaafadda markaad timid habeenkii kale ku soo wacay oo maanta hooyo saas tiriyo guri joog bay tiri marsiyo uu ku keenay. Adiga qof wax jecel tahay waa iskaga dulqaadatay wuxuu kuu sheegay. Maalin labaad, maalin saddexaad iyo sidoo kale uu sameeyay asigoo diidaya ama iyadoo diidaysa in aad isla kulantaan. Ogow qofkaas
maaha jaceylka uu kuu qabo mid dhab ah, sababtoo ah qofka hadduu ku jecel yahay asi ayaa xiiseeya inuu mar walba kula kulmo oo aad is aragtaan.